Odayaalka dhaqanka deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waliba yoon fadhiyana xalliyo ku dhawaato dhawaan ku dheeday degmada Taleex ee gobolada Waqooyi taasi oo ay dilinjaysidii macallin iyo imaam masaajid tumusan ku hay deegaanadaasay oo markaasay la ka magacaabo marxuum macallin Maxamed oo markaasay ku mid ah muwaadiniinta reer Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan beelweynta geedalde oo degaas deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo la raawo diinta islaamka iyo dhaqanka iyo waliba odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka UNESCO iyo markaasay go'aamiyana inta reerka qofka dilka jeesiyo biyan boqol neef oo geele si xalun ku deer arintaasay waa ko qaar kumid ah odayaalka matalow marxuumka oo koreeya Sultan Ibrahim Ali Barre iyo Sheekh Ibrahim Salaad oo korintii meelo ku hadalaya على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إلهي ما محد أصغناتي سبحانه عز وجل هلكا اسكو كاني أرنكي هلكا آن أنمي إن قنتي سي مصلحة ديسي إلهي سبحانه وتعالى نوفض دي آنو قادني يا محد أصغناتي أنك باشا قد هان البحانت قار هان نور أحمد وحانو هلكا kaga heshiinay aanu ka wada hadalnay ninka Allah u naxariistay ee marxuumka ah ee halka ku dhintay Taleex lagu dili inaanu Maxamed Abdirahmaan inaanu ku kala qaadanaa diyo ku kala qaadanaa dhacdadiis 100 halaad ah yaanu isku afgaranay inay naga siiyaan diyadiisi 100 halaad marxuumka 100 halaad 100 ka halaad inaan ku kala qaadano diya ahaan aan u kala qaadano anagana nagu soo wareegto diyadii oo ku cafina marxuumkaasi diida ku cafina yaan isku afgaranay ilaahi subhanahu wa ta'ala qulubteedina Allah hamadeeyo siyaasan insha Allah isku afgaranay in diidana siyaan 100 ka halaad muddo dhan 10 bilood nagu siyaan oo ku soo gabagabeeyaan 10 bilood ayaanu isku afgaranay anagana 10 ka bilood ayaanu ka yeelnay oo ka aqbalnay inay nagu siiyaan marka muddadaas insha Allah dib ka dhacday oo marka naxdin lahayd nin wadaad ahaayo ee u dhashay beelaha Digli Marafle gaar ahaan beesha geelale oo lagu dilay Taleex muddo hadeer adigu laga joogo 10 iyo maalmood meelaha baan halka u soo aadnay tuulada hadda iyo dadkii deegaanka wax ay raali ku ahayeen ma ahayn waxa dhacayo shil dhacayo dhacday weeye dad buu sababsaday nin buu sababsaday ninka sababsadayna hadda waxa dadka deegaanka raali kula ahayeen ma ahan dadkii ama qabiilada ninka uu ka dhashay si wanaagsan bay noo qaabileen waa heshiinay waxaan ku heshiinay inaanu magtii iyo ilaahay shariicada islaamka oo ilaahay ka jiday inaanu ku kala qaadano 100 halaad aan ku kala qaadano baa ku heshiinay arintaasi halkaas ma aragtay waa ku maslahownay beesha ma aragtay dhulbahante Nuur Ahmed iyo beesha haween gaar ahaan beesha geelilo ninka ka dhintay waxay ku heshiiyeen inay kala qaataan magtaas oo 100 halaad saasaan ku heshiinay arinta ku soo gabagabeynay waana isku maaragtay qalbi fiyownay oo aanu maaragtay si sharaf leh oo wanaagsan noo qaabileen oo maaragtay beesha ay noo qaabishay oo noo soo dhaweysay waan ugu mahadcelinaynaa dhibta meesha ka dhacdayna wax iyagu raali ku ahayeen ma ahan dadka tuulada dhamaantooda maaragtay aad bay ugu humaadeen sida maaragtay mas'uurtooda iyo dareenkooda marka aan fiirinay marka hadda dad aad ugu dangaday oo dhimashada ninka aad ugu humaaday bay ahaayeen marka hadda waa nin Soomaaliyeed oo Soomaali ka dhintay oo macallin ahaa weeye isagana Ilaahay u naxariiso hadda kulay arintaas saasay u dhamaasay waa lagu heshiiyay heshiiskaas aan ku dhamaysanay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Cabdulqaadir Rabi Koore sida odayaashu iyo cuqaashu ay sheegeen dhacdadii halka ka dhacday Taleex ka dhacday waa la isaga yimi beeshara waxa weyn waliba reer geelide iyo anagu reer Taleex waanu saganimi si fiican baanu arinta uga wada hadalay si fiican baanu isugu afgaranay
wixii dee dhaqanku ahaan jiray iyo sharci ahaan jirayba waanu isla afgarannay aad iyo aad baanu arrintaas aanu uga heshiinay sida ay sheegeen odayaashu sheegeen cusumada sheegeenna dee dhacdadaas waa qadar dhacay oo ilaahay dee xukun dhacay weeye waqtigiisii baana ninkaa macallinka dhammaaday waana laga wada xumaaday oo dadka deegaanku waa ka xumaaday aad iyo aad baa lagu xumaaday raallina kama aanan noqon sidaa darteedna aad iyo aad baanu arrintaas uga tacsidaynay ama uga murugoonnay waxaa noo yimi rag sharaf leh oo odayaala oo sharaf leh ayaa noo yimi siday ahayd baanu isla meel dhignay wax naga xumaadayna ma jiraan arrintaana sidaasaanu uga ballannay diyadaasaanu kala qorannay diyadaasaanu ku heshiinay iyo muddadaasaanu ku heshiinay dadka arrintaa danaynaya ee islaamka ahna saasaanu u sheegaynaa in arrintaa aanu ku heshiinay oo wanaag ku heshiinay oo sharaf iyo karaamo aanu ku heshiinay waxaanu arrin ka kulannay arrintaas dhacdada oo taleex ka dhacday geerida naxdinta leh oo nin wadaadii ku dhintay haddaanu nahay degmada taleex ama beesha nuur axmed aad iyo aad baanu arrintaas uga naxnay oo uga xumaanay beeshii uu ka dhashay oo reer geedadana waa noo yimaadeen waanu kulannay si fiican baa arrintaasu noogu dhammaatay xaggoodana rag khiyaara oo isma wataan baa noo yimi annaguna waanu ajiibnay oo arrintaa waanu macal qabannay waxaanu u heshiinay si sharaf badan waxaanu ku heshiinay xoolaha la sheegay oo xaqii ninka oo 100 halaada xoolahaas waxaa naga gudbay oo naga baxay 11 halaad oo rafisa ah intii kalena 10 bilood baanu qabsanay oo ku heshiinay inaanu kala sugno walaalahayo sidaas bay arrintaas noogu dhamaatay. Cabdullaahi Maxamuud Cabdullaahi Faani TV Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.